السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كينا رجدا نرشا قصة عجيبة. قصة نوامد كميدا قصوين كي ugu عجيب كبدنا uguna soo jiidashada badnaa oo ay qoreen culimada islaamka ayaan maanta idin soo bandhigaynaa. qisadan oo run ahaantii noqon doonta mid dareen baaxad leh kugu reebta. gabar aad u qurux badneed hanaawacan Ilaahay ku manaystay ayaa waxaa la sheegay in uu aad ugu helanin ay isku arkeen meel. ninkii ayaana aad ula yaabay gabadhani quruxdeeda iyo qaabka Ilaahay u sameeyay. ninkani ayaa wuxuu isku dayay in gabadhani xiriir uu la sameeyo si uu ula sheekaysto, balse marar badan ayay ku gacan seertay iyadoo ka diiday inay hadal la furto. ninkani ayaa waddo walba u soo maray siduu mar uun ku heli lahaa gabadhani, balse addoontii Ilaahay ku xirneed quruxdana lagu manaystay ayaa go'aankeedii ku adkaysatay iyadoo fursad dhan u diiday ninkani si uu ugu soo dhawaado. ninkii ayaa go'aansaday inuu kufsado gabadhani oo uu xoog wax uga qaato maadaama uu xeelad wax uga waayay. wuxuuna xoogay gabadhii oo aan raali ka ahayn, wax walba qasab ayuu uga qaatay. balse arrinka la yaabka leh ee qalbigaaga dhaqaanjin doona ayaa arrinka ay gabadhani ku dhaqaaqday inta uu ninkani hooshiisa watay. gabadhani ayaa aragtay